daabadda dhulka daabad dhulka ka soo baxaysa aakhiru zamaanka calaamooyinka waxaa ka mid a daabad ka soo bixi doonta dhulka iyaduna waxay sheegaysaa inay qiyaamadu soo dhowaatay qoraxdu xaggaa u wareegtay iyo iyadu ayaa isku soo dhow waa kii xadiidka aynu kusoo maraynay markuu midi yimaado ka kale uu daba socdaa haddii daabadii aragtaan qoraxdii baa soo dhow haddii qoraxdii timaadana daabadii baa soo dhow culimadu afar mabxath bay ka hadlaan ama afar qodob ka horeeya waxa weeye adilatu duhuuriha maxaa daliilo ah daabadaasi inay jirto dhulka ka soo baxaysa qur-aanka xaggiisa aayad baa ilaahay uu ku sheegay 82 suuratu naml ilaahay baa wuxuu waidaa waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun marka waktigii aan ugu talagalay iyo qowlkii cadaabku gaalada uu ku rumoobay la ciqaabayo dhulka waxaanu ka soo saaraynaa buu ilaahay daabad dadka la hadlaysa ku markhaati kacaysa inay ilaahay aayadihiisii beeniyeen axaadiidta daabadda sheegaysana qaarna waa kuwan soo socno qaarna horeynu soo marnay marka qur-aan iyo xadiidba daabadaasi way ku sugantao lama diidi karo qofka diidaana khatar buu ku sugan yahay nooceeda markaad eegto aqwaasha iyo maraajicda culimada qaar waxay ku odhanayaan waa jasaasadii midii ag joogtay dajaalolacwar qolo kale waxay leeyihiin waa hashii nebi saalex nirigee dhashay qolo kale waxay leeyihin wixii la odhan jiray thucbaan alkacba qolo kale waxay leeyihin waa qof hadlaya laakiin sidaa ugu fiicani waxa weye mar haddaanu nasku cayimin lama cayimi karo waa xayawaan aynaan garan karaynin nooca uu yahay aynaan sawiran karayn kol haddaan daliilku sawirin wixiina wax maqan uu yahay laakiin dhulkan bay ka soo baxaysaa dadna maaha waa daabad sidaa ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala arrinta kale waxa weeye halkay ka soo baxaysa qodobka saddexaad marka riwaayinka la isu eego shibha aljasiira alcarabiya bay ka soo baxaysaa intan la idhaah yamanta sacuudiga meelaha xadiidkan soo socdaa wuxuu inoo sheegi doonaa 3 jeer inay soo baxayso riwaayinka qaarna waxay sheegaysaa mar inay yaman ka soo baxayso marka labaadna tuulooyinka dhexe labadaa jeer maka laga ogaan maayo marka saddexaad bay maka ka soo baxaysa masaajidka iyadoo joogto baa la arki doonaa dadkuna sidan ay u kala yaacayaan kadibna way calaamadinaysaa mid ay wanaag ku shaabadaysa iyo mid ay xumaan ku shaabadaysaba shaqadeedu maxay tahay inagaa soo sheegnayba shaqadeedu waa qowl iyo ficil labadaba qowlkeedu waxa weeye sida aayaddu ay sheegtay dadkii inay ku barqaati kacdo kuwii aan aayadaha ilaahay rumayna ka gaaloobay ficilkeeduna waxa weeye qofka mu'minka calaamad wanaagsan bay saaraysaa sayna xadiidku arki doono wajiga u iftiimiso shaabad fiican ay ku samayso qofka gaalkaana calaamad xun ayay saaraysaa muujin doonta gaalnimadiisa calaama ilaahay ka muujinaya inkaar qabihi qofka awliyada ilaahay ka midana astaan wanaagsan baa laga muujinaya intaan aakhiraba la gaadhin ifkaaba lagu kala baxayba shaqooyinkay qabanaysana waa kuwa daliiladeeda nooceeda meeshay ka soo baxayso iyo shaqooyinkay qabanayso عن أبي طفيل قال كنا جلوسا عند حذيفة أصحابي حذيفة اكتسان وأكفر لنيبود فذكرت الدابة مركاسا وحن صو هذا القاضي دابة قرآن كشاغي فقال حذيفة رضي الله عنه حذيفة وحيري إنها تخرج 3 خرجات صدح جير بيصوب حيسا دابة داس في بعض البوادي وحي كصابح دونتا باديها meelo ka mid a uma takmunu markaasay isqarin doontaa uma takhruju waxay ka soo bixi doontaa fii bacdi alquraa magaalooyinka qaarkood ayay ka soo bixi doontaa xataa yudcaruu jeeroo dadka laga cabsiiyo yudcaruu jeeroo dadkii ducri iyo cabsi ay ku dhacdo wa xataa tuhriiqa fiiha alumaraa jeeroo ay daadiyaan nimanka madaxdii addimaa'a dhiig ay daadiyaan macnaha waa la sii joogayaayo dagaalla iska dhici karo oo madaxba qaar layn karo oo waa la iska sii dhaqnaanaya uma takmunu haddana way isqarinaysa qaala wuxuu uhi fa baynamaa waqti waa markii saddexaade annaasu dadku cinda acdami almasaajid masaajidada ka ugu weyn ay ag joogaan waa xaramka
وأفضلها وأشرفها كوغو فضل بدن أو شرف بدن إيجا أو ضدكو أكتوغا حتى قلنا تشيرون استريبون يعني أبي الطفيل باورانيا المسجد الحرام ويي وما سماه مو مقعاب حذيفة أما الرسول كوبا مو مقعاب وحانو استري مركي تلمانتا لسيا ومسجد بيت الله الحرام لكن رواية كروتن سيدة تنان قوي وهين أي حرم كأنه يهاي مساجد كاسي عيمية إذ وقت قايدو حرم كالأك شوغو ارتفعت الأرض دولكي أمبا كورو صور رقان صوي سيدي دابد دي باد يا صوبح يسا صوماها دولك هذه يشير مركا النبات صوبح يو وكان كورو صويرا فورعة دولكي با كورو صوكاعي ويهرب الناس ضدكي نوي كلاياعي أركين ميشن سو فورتي ويبقى وحا هريا عامة من المسلمين إن بدن أو مسلمين تكمدة رواية كلا وحي تلماميسي عصابة من المؤمنين كوح مؤمنين تكمدة وعامة انتي بدنيد من كأمة تاجنيه ضدك انتي بدنيد وياعين لكن إن كمدة ومؤمنين تكمدة أيا إيجو يا عواية يوصو هريا يقولون وحي أرانا يعني إنه أرن كوحو يهي لن ينجينا إن قبت بادين ما من أمر الله شيء إلهي لباتدي ستين وحبين قبت بادين ما محين كعرري أن إلهي إسكا آمنون دي إسكا تشوغن وحيد ورابها صابحة فتخرجوا ويصابح يساد بداس فتجلوا وجوههم وتشيغو ذي النوريس علامات بيكون سمايس افتيمينيس حتى تجعلها تشيري وتشياشي كدكت مؤمنين تاميش كسوهري كالكواكب الدرية حدقا افتيما يا وكلا مؤمنين تيان يا عينك كالسوري دلا اسكا سوهري وتشيغو ذي وحمريس واسكا افتيما حدقا وكلا إلا من نغضي وتتبع الناس دادكي أي دواع الرئيس مدبا مالك سوق بطبع رواية قاركود واحد تنام مدبا أي صلاة قليا ما يمكن صلاة دي كشهبة لو وسوي جاي شابط بكله فنيس آد بالجا بريوان كاسينا قوي وهاي آد كوفتي منيا أنت سألك كاسيك وشوكته جيران في الرباع شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام أنت سوى قوري مرخاه حذيفة سئل حذيفة فما للناس يومئذ بقى أنت سامش كتير حذيفة مركا لو يديه وحلا واحد كور أنت ضدك حال كود واسده هذا عرّينا دوا عرّت مركا وحول جيران هم يجوا جيران وضد إسكا أولوجا وفي الرباع يديجا مدو دي إسكا شوجا وإسكا شيء شوجا يعني وإسكا بهاشي بكهريس شركاء في الأموال حوله دينا وإسكا وضيالنا يا نقشت دنباتشريس وأصحاب في الإسلام الإسلام لماذا ندي صاحبك وسيهانيا رواية لو حيت المامسة وأصحاب في الأسفار سفر هذا دينا وإسكسي وضن دوران معناه باش المشي كبحيسا ويكهريسا ددكي وإسكسي نقنانيا قارب ديغان بإسكسي هانيا قارو إسكا سفريان قار شراكا يهانيان مركا واحد مودا انتن إني اسكو حلانتي لكن ويكلا قوانت وتتبع الناس أي دابة أي دبع الرئيسة انتاسا مركا هذا الكنيسة دحقلاي marka dadkii way iska sii dhaqnaanayaan daabada kadib baa laga fahmaya marka xadiidkan wuxuu sheegayaa daabadu inay saddexda jeer soo baxayso mar meelo durugsan mar magaalooyinka mar xaramka dadkii kala yaaci doonaan habkay ku soo baxaysa uu yahay inuu dhulku soo fuurayo oo la arkayo meel ay ka soo baxayso kadibna ay kala yaaci doonaan inta soo hadha ee muuminiinta ay isku kalsoon wajiga ay u nuurayso inta kalena dee waji xumo ay kala kulmi doonaan xadiidkanina waa saxiix weeye marka axaadiidta yara iftiiminaya faahfaahinta daabadda ayuu ka mid yahay kani oo uu ka soo qaatay badankooda kuwa kale waa daciifa daabad baa soo bixi doonta axaadiidta sheegayuunbaa saxiixa laakiin kan unbuu ka soo helay wax si fiican u faahfaahinaya markaasaa daraaddeed buu intaa ugu soo koobay مستدرك كسوغي حاكم قال الذهبي على شرطهما أي شرط الشيخين رجال الشيخين بكورنية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان صلى الله عليه وسلم بقول يا فريا فرتا وضعيف سقو قال وحيولي تخرج الدابة دابة صابح دانت آخر زمان
ومعها خاتم سليمان بن داود waxay sidataa fargalkii nebi daawud uu gashan jiray وعصا موسى بن عمران موسيه نبي موسى بن عمران وشيسينا way wadataa quraanku ka warrama فتجلو وجه المؤمن وجهga mu'minka waxay ku iftiiminaysaa bil asa ushan bay saaraysaa وتخدم waxa ay ku calaamadinaysaa أنف الكافر قالك سنكيسة بالخاتم فرقلكي نبي سليمان أي ساقو شابضينيس خضمي waxa weeyaan ganaf kawe af Soomaaliga sumada ganaf balayda wali deero sanka dushiisa saa xoolaha looga sunto geel oo kale iyo liid baa saa sanka dushiisa looga suntaya markaas la neefkaasi ganaf baa lagu sameeyay halka ganafka ana sumad ba ganafka laga sameeyay ganafku waa halka sanka dushiisa markaas ka calaamadinaysa marka kuwana wajigaas u iftiiminaysa awsha qaalkana waxay ku calaamadinaysaa fargalkii nabi Suleymaan حتى إن أهل الحوار إلى ذلك حافظ وذدقني لا يجتمعون أي كلمان فيقول هذا كان وحورنا يا مؤمن ويقول وحورنا يا ككلا هذا يا كافر فيقول وحورنا يا هذا يا مؤمن هذا يا كافر وارقالوا وارمؤمنوا على مدنا أستانتي قال لماذا كم وقت مدنا أستانتي إيمانك ويك العلامة دي الحديث هو ضعيف وحنا كجرا علي بن زيد بن الجدعان اللي يراهdo رواد ايمadu badankooda ay ku sheegeen inuu daciif yahay inkastoo Ahmed Shaakir isaga oo arka inuu gaarsiisay heerkii lagu daliishan jiray wixii uu wariyana waxa uu ka dhigaa inuu maqbuul yahay xadiidkaasi kan laftiisa Ahmed Shaakir isagu waa saxiixiyay oo fi ta'liiq ala al-musnad musnad imaam Ahmed markuu ta'liiqinayo waxa uu leeyahay Ali ibn Jad'aan anigu waxaan u arkaa in maqbuul inuu yahay xadiidkiisana la daliishan karo marka wax tafsiil bixiyay kana jira laakiin la isku khilaafay sugnaantiisa iyo la'aantii inta adiya jeer sugan baana laga qaadan karaa in ahla al-hiwa waxa way dadka xaafadaha meel degan miyiga waxa jira qolo boota la yiraahdo bootadu waa dad meel ku ururayo deegaanaha qodaala ilaa 10 qoys 20 aqal ama ceel dushii bay degan yihiinoo halkaasay jaar ku yihiin meelaha qaarkood waa arki doontaa in ahlan khinwaan dadka maaidada wax ku wada cunaya khinwaanku ama miis bay wada dul fadhiyaan ama sufrad bay wada dul fadhiyaan oo ay wax ku cunayaan dadkii meesha wax wada cunayay ayaa oranaya isgaranaya warkani waa gaal kanina waa gaal kani waa islaam calaamada lagu garanaya marka inahaasi waa inaha daabadaasi aynu ka arkayna iyadana باب ما جاء بشأن ياجوج وماجوج لبدا قلو مرر بدن aynu soo marnay waxyaabaha arrinkooda ku saabsan baa la sii sheegay xadiidkana uu sii faahfaahinaya عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سوى مستقبلك كورمي وحيابه إلهي وشيغ غيبك لغيبك إلهي باوغي وحنا وقان كرعدي إلهي وشيغ رسوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا حكمتها غيبك الله وشيغ رسولك آياتك قلوحية قداش يدا إلهي وكعدي قال رسولك وحول تفتح يأجوج وماجوج لبدا قبيلة مقع الله إذا هذا لصافر دوناه آخر زمانك فيخرجون ويصابح الدونان كما قال الله تعالى سيدو إلهي بوشاقي أيو سود درير الدونان وهم يقوا من كل حدب ينسلون يقوا كسو بودا يميل كستو تاغن وهم يقوا من كل حدب ميل كستو تاغن ينسلون ويكسو بودا ميل علينيسا ما جرت فيعمون الأرض لولكي ودا قاريا لولكي ودا عام يليا وينحاز منهم المسلمون مسلمين تنوي كأرور صنيا انحياز ودينع بي سقور صنيا حتى تصير تشاري نقط بقية المسلمين مسلمين تا دمانتود في مدائنهم وحصونهم مقالوين كودي قلعاده هذا مسلمين تقليا
baqiyadu imika waa dee muslimiintii oo dhan meelay kala wada galayaan magaalooyinkeeda ka gabba baa dhacaysa qaar waxbaa soo dareereen ka gabbo qolo waliba meesha heli kartaabay ka galaysa wayadumuuna ilayhim mawaashiyahum xoolahoodana way uruursanayaan yadumuuna ilayhim waxay xaggooda usoo xaraysanayaan mawaashiyahum xoolahoodana mu'miniintu dadka muslimiinta way xaraysanayaan maalinta xataa innahum nimankaas ya'juuj iyo maajuuj la yamuruuna binnahri webigay soo marayaan markii hore buxayratu dabariya ayaynu ogeyn baddii ku taalay xagga meelahaas urdun iyo falastiin iyo ku dhowdhoweyd ama ku taaleen dabariya laakiin halkan nahri buu sheegay nebi webi ayay soo marayaan fayashrabuunahu way cabbayaan xataa maa yadaruuna fiihi shayan jeeroonay waxba kaga tegin webigaasay ka laacayaan cirweyna fayamuru aakhiruhum calaa aharihim kooda u dambeeya wuxuu soo marayaa kuwa hore halkii raadkii iyo halkay ka tegeen fayaquulu qaa'iluhum koodii hadlay baa wuxuu odhanaya kuwa xagga dambe soo maraya ka mid a laqad kaana bi hada almakaani halkan waxa ku jiri jiray fiihi shay-an laqad kaana bi hada almakaani halkan waxa ahaa maratan maam waar halkan mar baa biyo ay ku jireenoo waxbaa kasii qoqoyan ayay kuwa dambe odhanayaan wayudhiruuna cala alard dhulka ayay ka qaalib noqonayaan macnaa dadka jooga ayay ka xoog badanayaan fayaquulu qaa'iluhum mid qoladan yaajuuj iyo maajuuj ka mid abaa wuxuu odhanayaa haa-ulaa'i kuwa ahlul ardi dhulka ehelkeeda ahaee deganaa qad faragnaa canhum waynu ka farxal qad faragnaa minhum waynu ka faaruqnay dadkii dhulka joogay ka dhammaanay walanunaasilanna ay lanuxaaribanna waynu la dagaalami doonaa ahla samaa'i dadka samada cidda samada ku nool baynu haatan usoo dhiganaynaa kuwii dhulka ku cabnaya xataa ina axadahum markaa lanunaasilanna erayada qariibkaan isu kaa dul taagaya calaamad hadha way kugu adkaan karaa lanunaasilanna lanuxaaribanna calaa ahli الsamaa xataa ina axadahum ilaa mid ka mida kuwan yaajuuj iyo maajuuj layahuzu xarbatah murjinkiisa ama warankiisu sidaa u ruxruxaya ila samaa'i xagga kore marka had iyo jeer waranka aad meel ku tuurayso saasaa loo cudiyaa oo loo ruxruxaa si aad u miisaanto marka xagga saraan ku ridaynayaa buu odhanaya fatarjicu way soo noqonaysaa mukhadabatan bidam iyada oo dhiig ku dhooban oo looga dhigay inuu wax la helay oo kale warankii uu kor u rideeyey ayaa soo noqonaya isagoo caarada dhiig ku leh oo ilaahay uga dhigay inuu wax la soo helay fayaquuluuna waxay odhanayaan qoladii yaajuuj iyo maajuuj iyagoo ismacaashsiiyey qad qatalnaa ahla samaa'i halla wixii xagga sare joogayna dee malaa ilaahay iyo malaa'igtiisa u jeedaane soo dilna fa baynamaa hum kadaalika iyagoo isla waaweyn oo sidaa ku sugan fa baynamaa waqti hum kadaalika ay xaaladdaa ku sugan yihiin yaajuuj iyo maajuuj oo isleeyihiin wax dhul cir iyo dhulba wixii joogay waa mariseen id bacadfa allaahu ilaahay wuxuu ku soo diray dawaabba ka naqafiljaraad daabado waa noolo yar naqafuljaraad waa waxa weeyaan dirxiga loo yaqaano magacaa naqafku markiisa hore wuxuu ahaa duud oo baalkan had iyo jeer dadka xoolaha dhaqdaa way yaqaanaa sangaala la sangaale ama geela ama riyaha ama xoolo bif buu agtaada ka odhanaya siiba markuu jeelo ayaa xasharaadkaasi ku dhalanaya xaggaa sare iyo khayshuumkiisa bif markuu dhaa dirxi intaa leeg buu soo tuufayaa sanka ka soo tuurayaa neefka sangaala markaa la yidhaha sangaalaha yaroo qaybta loo yaqaano naqafuljaraad waa magacyo kale leeyihin dirxiyadaas waa mid magacaa la yidhaahdo dirxiga ayaxa kaasuu soo tuuraya kaasaa ilaahay soo diraya fata'khuduu biacnaaqihim qoortaasunbay ka gelaysa fayamuutuuna mowta aljaraadi waxay u dhimanayaan sida ayaxu u dhintoo kale ayax la buufiye ka waran meel walba wuu buuxinayaa nimankii isxariifinaya isla boodboodayay dirxigaa yar
ayaa ilaahay qaybtaa dambe ee qoorta sidaa ugaga taabtay sida dhuluxan dadka ka soo baxa Soomaad arag dhulux waa dirxigan meelaha inaga galaya kaasuun baa ilaahay ku salidayo way wada dhimanayaan sida ay xalalaayay yarkabu ba'dhum ba'dan qaarba qaarka kale dul baxaya nimankii is waaweyneenay fayusbihu almuslimuuna dadkii muslimiinta waxay noqonayaan laa yasmacuuna lahum hisan kuwa aan u maqlaynin dhaqdhaqaaq laa yasmacuuna uma maqlayaan hisan iyaga lahum hisan wax dareena markii hore dig iyo dim iyo qaylo iyo buuq baa ka baxaya cariga oo kolba dhanbe u yaacayeen Yaajuuj iyo Maajuuj codkoodii u baa aamusaya sanqadhoodii baa la waayaya gaw fayaquluna waxa oranayaan muslimiintii gabaday mar rajulun warnin ma jiraa yashri nafsahu naftiisa ilaahay ka iibinaya armid sahanaynu u baahanahayo naftiisa ku yoolbaado oo nafta qoore wayanduru ma fa'alu oo soo eega waxay sameeyeen war kuma naftiisa beemaynayo ilaahay ka iibinaya oo waa kuwan aamusay bal soo eegaya nimankii Yaajuuj iyo Maajuuj fayanzilu minhum rajulun ninbaa soo degaya muslimiintii gabaday kamida qad wadana nafsahu naftiisa wuxuu u salaxay ala an yaqtuluhu inay dilaan Yaajuuj iyo Maajuuj ninka ku sii socdaa waa nin isteeyareeyo kafantiisu sii qaatayo qad wadana nafsahu hayya an-nafsa naftiisa wuxuu diyaariyay inay dilaan bal muslimiintu waru soo wisiday iyagu ha ku dilaan fayajiduhu mawta wuxuu helayaa wixii wada tawafay oo wada dhintay fayunaadihi muslimiintii gabaday buu dhawaaqaya ala abshir buu leeyahay war hooya ay bushaaraysta faqad halaka aduwukum adawgiini wuu baabay Yaajuuj iyo Maajuuj fayakhruju an-naasu dadkii baa soo baxaya muslimiinta gabaday wayukhluuna sabiila mawaashihim xoolahoodana wadada u sii deynayaan wayukhluuna waxay banaynayaan sabiila mawaashihim xoolahooda wadadoodii markii hore xoolaha wadada way ka xidheen oo way xareeyeen Soomaa oo diba xoolaha laga qaadaya si ay u soo dareeraan iyaguna qaladii ka soo baxayaan fama yakunu lahum ra'yu xoolihi waxay daaqaan male illa luhumuhum hilibka qolada Yaajuuj iyo Maajuuj mooyaane xoolihi wax kale cunaan ma hayaan xooli baa markaa hilibkoodii cunaya fatashkaru markaasay fatashkaru calayha xoolihi way ku naaxayaan hilibka qolada Yaajuuj iyo Maajuuj markay cunaan ka ahsani ma shakirat sida ugu fiican ay ugu naaxdo min nabatin geedo asaabatu ay daaqday qad waligi xoolihi hilibka Yaajuuj iyo Maajuuj markay raqaan ayay u naaxayaan sidii ay ugu naaxi jireen geedaha ugu wanaagsan ama sidii ugu fiicnayd ay ugu naaxi jireen geedaha iyo daaqa wanaagsan xoolo markay daaq fiican oo qoyan helaan soo ma naaxaan saasoo kale hilibkoodii ugu naaxaya marka inihii hore arrimahooda ku soo martay xadiidkan intuu siyaadiyeyna waad ku darsanaysaa macluumaadka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول إن ياجوج وماجوج لبضن قراء شكذا الصومالي ذا كم مغرب جرتماها مد خرافات وصحوي حديث كان صحيح شيء ياجوج وماجوج يحفرون كل يوم مال والباء وحي قضان بورتي جدارك لو حراي ماشي لو حراي حتى إذا كادوا مركي ودوادان يرون شعاع الشمس قرحة إفتين كذا إني أركان مركي ودوادان واجو بريه قرحة سود وواته قال الذي عليهم كوم ضحذي وحورنا قال وحورنا الذي كي عليهم دشودها معناه هو جاميه هذي بوحورنا يا ارجعوا سكن لابت مانتو فسنحفره غدا بالربا ينباقي قضية بل كنا استمانت يربى نوعه فيعيده الله إلهي وحكو علينا أشد ما كان سيدي وهاكي ودراء ليش يا قدين سيدي وأتكيد بلغنا حتى إذا بلغت مدتهم وحي قضالك أكو تيرانا إنتني ونقوى الدنيا ذاك شقي سنين أنا عري يرول بحيني أنا قضالك أسيكو تيران مركي مدده وذو قاعده وأراد الله أن يبعثهم على الناس إلهينا أوضانا إنو دادك كسو دايو لو واحد بوقت بين لينو إلهي بهايه حفروا
ويقضيها سيدو دي عادي هاي حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس مركي ودوا هذا قرح ذا فلاره هذين أركان شعاع وفلاره قال الذي عليه ارجعوا كيما دحلا وها وراني وبل اسكلابت فسنحفره فستحفرونه مركي ورا نحفره بعد ما كان يجب إضافي أما وتيري إسنادك فستحفرونه غدا بريبة إذن قد دونتان إن شاء الله تعالى أدوا إلى هاي دونه استثنوا محي إن شاء الله بيدا استثنوه وحوي إلهي وحلور ريابه وحسين سمينينا أدانا إن شاء الله ورن استثناء ما سمينا إلهي وحبه ما تريبين بقى هذا قوان صدق وحسن سمين دونا هدانا إن شاء الله ورن أنت بدون استثناء إلهي وحبه ما تريبين لكن مركز إن شاء الله تلا أرنك إلهي بدو ديس مركز استثنوا إن شاء الله بيدا فيعودون إليه وحي أصلا نقول ينقذك قد تشرين وهو كهيئته حين تركوه سيديبو يهي مركي أي كتجين لما أتكيني سيدي بري هور الله أتكيني لكن ما كيسقوا يرى جابان وهافة أما نص أي كسر نقول يا سيدي أي كتجينا فيحفرونه ويقضيا ويخرجون على الناس ذلك كسر بحيان فينشفون الماء بي فوق صنيا الله ما شيء سومران بيه هذي ويفوق صداه